mudaharaad salmiya oo ay isugu soo baxeen bulshada ku nool degmada Allay Baday ayaa waxaa bulshadaasi ay ku muujinayeen mudaharaadkaasi sidii ay uga hadli lahaayeen askari ka tirsan ciidanka booliska Somaliland oo ay ciidamada liyu boolisku ka qaateen degmada Allay Baday ee dhinaca Itoobiya taasi oo ilaa hadda xukuumaddu ayna ka hadal waxaana dadkaasi mudaharaadka isugu soo baxay ka dhex muuqday qoyska uu ka soo jeedo askarigaasi dadkaasi ayaa codsi u diray madaxweynaha Somaliland iyo taliyaha ciidanka booliska Somaliland anagu ujeedadeedu halkaan aanu imanay ma aha inaanu rashbad samayno inaanu qalalaanso samayno muhiimkaanu imanay waxa weeye si loogu soo dayn lahaa askariga ka xiran qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ahna qof degmada Allay Baday qof laga qafaashay waxa weeye haddaan mid kale ku sii yardano iyaga oo dirayskooda xiran qalabkii qoryihii wax walba sitay noogu dhex yimaadeen degmada Allay Baday berri ka maalina shicibka oo dhan baa la tagi doona waxaan leenahay waa si dhaqsaha ugu badan laga soo jawaabo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar halkan maanta waxaanu isugu nimid askarigii ka tirsanaa ciidanka booliska kuna dhashay degmada Allay Baday wax hadala iyo wax murtiya oo aan ka haynaa dawladda Somaliland ma jirto halkan gaar ahaan waxaan la hadlaynaa madaxweynuhu codsigu ku leeyahay laakiin waxaan la hadlaynaa taliyaha booliska Cabdilaahi Fadal Iimaan waxa weeyaan askartu waxay leedahay xurmo askariga ku shaqeynaya wuxuu leeyahay sharaf askarigu waa kii dalka iyo dadka u shaqeynayay maalinta dibila soo kulanto hadii loo dhiidhii waayo waxaan u malaynin direyskaba la iska wada dhigay oo aanu shicib wada noqon askariga Cabdi Casiis oo wali aan gobolkii Gabileyna una wax akhbaar ka soo dirin halkan waxa ila jooga hablihii walaalihii oo ah Ayaan Ciise iyo Nimco Ciise halkaan ay ila joogaan waxay yiraahdeen waxaanu u tagnay shaambalkii u sareeyay wuxuuna yiraahdeen annagu waxaan wax ka maantay dumarkiina ooyaya haday arrin dawladeed ayna ahayn arrin shicib tahay waan idin siin lahay marka waa nasiib darro iyadoo dawladii Itoobiya hablihii xushmaysay oo ay garatay inay dhiidhiyayaan waa nasiib darro haday kuwa yagi dhiidhii waa inay oran waayeen hablayahow maxaa idin ka maqan meesha muraara dilaac baa yaala waxa weeyaan mar labaad waxaanu leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland haddaanu nahay shicibkii Allay Baday waxaan leenahay madaxweyne ummadan adaa xukuma markay doorashada doonayaan siigay nagu rogaan marka ummaddu dhib timaadana wax noo soo jawaaba ma hayno waxaanu leenahay madaxweyne hay'adii dalka ugu sareysay adaa waxa maqanina waa wax adiga ka mid ah oo waa askarigaagii dalka miyaanay ayaan darro ahayn waxa maanta aanu soo ururnay haddii uu noqdo askari oo ay shicib dhaafto miyaanay dawladda ceeb ku ahayn baan madaxweyne ku leenahay waxaan leenahay hanala kugu soo jawaaba sida ugu dhaqsiyaha badan inagoo cayladiisii ah iyagoo ehelkiisi taagan yihiin annagoo wixii waxgarad Allay Baday ka dhiidhiyay ay joogaan hadalka waan ku fogaaday waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdilaahi Fadal Iimaan waxaanu leenahay arrintaa waa inaanu si degdeg ah haddaanu shicibkiinahay waa inaanu u helnaa waayo wax ka xun baa iman doona maanta haddii dhibtaasi la xalii kari waayo waxa weeyaan waxaan leenahay noo soo gurmada gargaar ha la idinka helo waa qarankiinii waa askartiinii inaan annagu idin sheegnaana waaba nasiib darro madaxweyne salaamu calaykum inanka la qaatay askariga walaashii baan ahay lixishu xulay lixisho Axmed Maxamuud Tiiraan waxaan leeyahay madaxweyne maanta u lixaa askarigaaga dadka Carabiga ah xidhnaa isma ogaanidii waxaan soo cabayaa bun lagama hadal barasaabkii Gabiley kama hadal gudoomiyihii Allay Baday kama hadal barasaabku xigeenkii kama hadal madaxweyne ma qaran baa mise waa qabiil maanta qaran ma aha waa qabiil Gabiley saddex ishaan meeraysanayay askari joogaa ma jiro mid walba sharci fasax uu qaatay cid laga guraysaa ma jirto xilkay wax isku yihiin
وزير كيه وعذيرة كيه هجان كيه مدريين ما تقرن معه قبيل بيكدجان مدحوين ما تقرن معه قبيل بيكدجان ما أنت وياك اللي حشوا تايد مشينا وطارم يلاكم ما حيو مدحوين واحد كعصرين تقدر دجا أول بحنت أنا وقعدت سوامل الله أسكر جاي قرن كان قبيل كدجان وأنا قفديستان رجع بلي الله يبارك كم يهل قدومي لا كم حلال قدومي لا كم حلال قدومي كحيان بلا كم حلال تليه ماشي سيس كده حفظيا والله كم حلال والله هو نديني إن الأركض بين هاي العد بين هاي قالوا الواد لنا كياجي قبيل بالله قد قبيل ما صدق عشان يا رئيسنا يا مدحويني ما أنت ما أنت يا هذا كي من سال كم حنقول هذا لو بصوا دويني عرض كنا قد عوكال كاين أكتاجنا هاي سموه عنا نوكا عاكفيني ما أنت مدحويني واحد كعصنا يا مدحويني هاي شرفت له إن أنا بصوا جالسين أيا نو أجادي ما أنت قبيل ما شاء الله يدرها بدح فيديو كل بحفيز دح يا رئيسني الله بدأ لا قبيلي قارك قبيل بكدجان مدحويني عسكري قدرك عربي قاحدا بمبار صعب يا يسوي دمي وين ويا كواني يا كقاتل لقفاشي سيدا واحد شعب كان طبعا لا نسوا ميل لا كحر باب طبعا وراابا وعالم كيسي arkaya walaalkaymaan u raqiyo ruuxtaan ma haya madaxweyne way nadiideen maxaan kula wax walba gabila way ka dhaceen guu ka dhacay ka maxaan kula guutada haystay taliyo badcu ku maqan yahay kan kale kaas ku maqan yahay madaxweyne waxaas ma wax qabtaa أنا بتوصل أنا قلت لنا في أول كل حناية صدق واتشانونا كل حنا إذا الله عيد كهذا الشيء يعيد تري ومحال هيسان ما شرتو وحلا إننا نقص وقنعيه إن يدي هذو إنه الشعبي هاي إن كان فراغ حاجة قادم لكن هذو دولة ما نخف عشان دولة بهنا كواذا حديد كرر واحد كده من كرتان ما شرتو أنا ودو شعبي أي ما تقوم أنا صعب أنا لكن أذكر قدام قرن كتر وهم دولة كتر سنة أنا دولي كهذا سعيد إسلام وكهذا الشيء قبيلة بقى متقنا شريت هذا حفيسية قبيلة برا ساقنا متقنا ما تشوق بعدين يا هذا النيوغنا ولا نقول سيدا يا ولا فرارا نوقع على أذكر برا ساقنا ماشى ده فرديانا أوف إسلام وأركي كلام ما شفت هل كانوا كم بقى يا هل كانوا تشوق يا هل كانوا تشوق خايف تام متقنا سلا سلا عندما أنا صار أذكرت سومالنا لكن أنا قلت بيه حرادة نودح قالوا ندح فريسي دون بينا دقمنا قبيلي وين قورستي وين يا رئيستي ما دونينو لان كمالهن كايغل الحرو كايغل كشلقيو كايغل حشوقو midna kama hadasho geesta kale taliyaha ciidanka booliska degmada Allay Baday oo aan wax ka weydiinay in ay ka daba tageen askarigaasi ka midka ahaa ciidanka booliska Somaliland ayaa waxa uu yiri عسكري بوليس عسكري هو طلع دورة هاي أبارة تطويرية هذه إنه كانت كلا يتوب لسالة سبورة جريس ناسي مقاحية وسوق جيري ولا شيء ما نسمع نقدر حيسي وسوق وحنا نسوي دين شيء وحنا نسوي عليه شيء وحنا يجوا نسوي شاشة شيء حنا يجوا شاشة شيء ولكن مقاحي ممكن لقى عبده نقول يعني سيد ممكن سواعب تأسوا بدون سوى مقاحي بفرية كان مرة كوي هذا وما كان راسته ويا ما كان وكان تعب سوى فرية بعد نسيت ليش له ابن ناس سلا سالمو كحي وني عسكري عبد العزيز محل قلي حرد الماليزيا ده كانت تولي مقاحد يكون كيدان تيتوبين ولا حي يسوي عباية وتسلا عسكري قالوا قال سلا سير مو هاي عسكري لك حي عباية بدي دانتا سوماليا عسكري قافتوا بينهم مو هاي سي اختياري أنا بوجود بي سي اختياري أنا وطن كشاهد تري سووا عب ساسا محي يعني عسكري قبل كيسي يلا وقع على من حق الدر هاشم هاي وجه عليه
guuleystay haddana jigjigaa la geeyey baa laleeyahay xilligaa la qaaday waxay ahayd bisha koowaad bishan labaad kowdeedii habeenkii ilaa 7 saac sidaasuu ku dib askarba xaqaynu ka tirsanaa taas waa qodob labaad lama afduubin askariga agtiyaana baa laga qabsay daanka isagoo kun ama shaaca ku doontay ama teena u gaadhay فصدحاتنا سلاسة مقعنتي نوصل وبيتشرا وليك عنتي توجيه والله عدخي بنتو قاعدة وأنا قاعد بيدي عدخي وأنا تخليص لك ما هو سياسة ما يفهم مقاعده لكن أنت لا قولك لا حقا وأنا قاعد سيني سومالان حقا نقول إلى مدة دانتن شوفته وأنا ودي أسكر قاس السياسة أتفهم بوسه بتريه دانتن ويمشوا هذا iyadana loogeyn kormeeriyood baa joogay iyo qolyo kaloo iga sarreeyana waa joogay sidaasaa wajaale loogu gudbiyey wajaale dhinacii looga qaaday weli iima caddaaniga laakiin wararka aan hubaasha ahayn jigjigaa baa dib loogu celiyey waa Xamse Cabdirashiid Sheekh Diris muuqaalaliska caalamiga ee Bulsha TV degmada Allay Baday ee gobolka Kangebile.